بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيقو أبوكات حسن حسين روبلة كان ميده قدي فولينتا أورك قرينة الصوماليات وحافيز كيغا سو غاري عباشو أي سو قرين هيئة أنصار انترناشنال oo ah madrasa ku taala maamulka madrasada ku taala Kras Kamboni oo abashadaas ku saabsan in gabar kamida gabdhihii dhiganay oo yaryara madrasada dhiganay lagu kufsaday Kras Kamboni laba qof oo waaweyn ay ku kufsadeen maada ka gaadhay ciidanka ay soo qabteen ayagoo fal dambiyeedkii gacmaha kula jira oo la geeyay Kismaayo aydan ay ku jirto maanta isbitaalka Kismaayo كان دمبيلياشي جيستي كوفسيغاس فول حماده بدن له ay gacanta dawladda Jubbaland ay ku jiraan ma hadda waxa iskale ciidankii soo qabtay ma sha Allah marka tan kale anigoo ah Abukaat Xasan Xuseen Rooble oo la ii wakiishay inaan maxkamadda ka difaaco xaqeedan ugu raadiyo gabadha dhibanaha ah la kufsaday si foolxumo ku jirto jirdil loogu sameeyay lana kufsaday ayaan mataqaanaa waxaan cadeynayaa cid alaal cidii khusaysa oo mataqaanaa inaan qareen u ahay maxkamadda horteeda aan ka difaaci doono warqadaheeda iyo procedure-keeda waxeedan aan soo diyaarsan doono aniga oo la safan xafiiska xeeraliyaha guud qaranka xafiiska xeeraliyaha guud ee maamul goboleedka Jubbaland xeeraliyaha iyo aniga inaan wada difaacno ayaan mataqaanaa wakaalad ugu qaatay reerkan iyagala soo hadleen Ansar International hay'adda oo ah hay'adda madrasada meesha ka furan maamulkeeda haysa ayaa mataqaanaa isoo magacawday iyo waalidiintii sida hooyadeed iyo ehelkeeda dhammaan marka sidaas intaasaan cadeynaya waxaan u cadeynayaa cid allaale cidii khusayso warqadda cabashada waxay soo gaarsiiyay hay'adda Ansar International dhibanaha gabadha dhibanada oo sida foolxumada loo kufsaday waa Xafido Daawud Ahmed Nuur hooyadeedna waa Maryan Abdi Isxaaq intaas ayaa ii soo wakiilatay inaan ka difaaco amaantantiin waxaan diyaar u ahay cid kasta mataqaanaa inaan maxkamadda horteeda ka difaaco wax heshiis ah iyo gorgortan midna ma laha waxaan ku kala bixinaa maxkamadaha dalka oo dhan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cid alaale cid doonaysa in mataqaanaa wada hadal iyo heshiis ka gasho taas annaga reerka waa diideen anna waxaan ku difaacayaa maxkamadda horteeda salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu